السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهانتين باخير تقيمها يقدرين تمدن ميل والبود دافع عالم كجوجتان داود يل سرقت مقل وناكسن وعن وعلى سوق جار وقت أنا ذهن وكلا ودين سومرين جند وروحي ديجان كي يدل كنجا سوق جاري أو ستة سيدين كي من يزدون حرون تديجان كسوملي ده مجال جيجا وركي جنا واحد لسه عشرين دولار نجوا فرع عبد القادر بدأ ورر كان ديجان كي يدل كي دين كهاي إنه وجود دور كرون وواحد كميدا madasha shirarka ee qaryaandhoodaan ayaa lagu soo gabagabeeyay shirweynihii sagaalaad ee waxbarashada ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya warkaan idinka hayno dalkeena Itoobiya ayaa la sheegayaa in uu guulo wax ku ool ah ka soo hooyay dhinaca horumarka ee 10kii sano ee aynu soo dhaafnay qodobadan iyo qodobo kale ay idinku daawan doontaan xilitabinteena wareed markale daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo saragti maqal wanaagsan oo wacan kuna soo dhawaada war wixii deegaanka iyo dalkan idinka haynay oo faahfaahsan madasha shirarka ee qaryaandhoodaan ayaa lagu soo gabagabeeyay shirweynihii sagaalaad ee waxbarashada deegaanka Soomaalida Itoobiya Lumaan Cabdi Axmed ayaa baabaynta warkan inoo eegaya shirweynihii sagaalaad ee waxbarashada heer deegaan oo muddo 3 cisho ah ka socday hoolka shirarka ee qaryaandhoodaan ee magaalada Jigjiga ayaa la soo gabagabeeyay shirweynahani ayaa waxa uu ahaa mid laga wada hadlayay waxqabadkii dhanka waxbarashada ee 2009 iyo waliba sidii la iskaga sixi lahaa gaababkii ka jiray dhanka waxbarashada sanadii 2009 waxaana shirweynahani goobjoog ka ahaa kana soo qayb galaya mas'uuliyiinta xafiiska waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mas'uuliyiinta gobolada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka iyo waliba madaxafiisyada waxbarashada ee deegaanka waxaana xiritaankii shirweynahani ka hadlay wasiirka waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Ibrahim Aadan Mahada oo halkaasi ka soo jeediyay hadal daradaaran ah oo ku saabsan hirgelinta iyo kor u qaadida tayada waxbarashada ee dugsiyada deegaanka iyo waliba sidii loo soo xareyn lahaa ardayda gaadhay da'da waxbarashada kuwii hore u dhigan jiray iyo waliba kuwa baahida gaarka ah qaba lana arki karin cid da'da waxbarashada gaadha oo dugsiyada aan tagin waxa loo baahan yahay saddexda maalmoodna aynu ka hadlaynay in aynu kor u soo qaadno adeega waxbarashada ee deegaankeenna taasi waxay ku xidhnaanaysaa qorshaha 2010 ee aynu dhiganay inaynu sidiisii u hirgelino waxa loo baahan yahay inaynu muujino aynu ka ambaqaadno halka aynu taaganahay isla markaas aynu dib u soo noqonin halka aynu sii hiigsano meel ka sareysa taasi waa qodobka koobaad ee in maanka lagu hayo u baahan qodobka labaad waxa weeyaan in aynu diiwaan galino ardayda gaadhay 7 jir oo nu diiwaan galino galaaska koobaad in aynu diiwaan galino ardayda baahida gaarka ah qabta iyo inaan diiwaan galino waxbarashada dadka waaweyn
intuba waxay qayb ka tahay qorshaha abaabulka aynu hadda qaadanay. arrinta saddexaad ee dardaaranka aan ku darayo waxa weeyaan kor u qaadista xaddiga waxbarashada barbaarinta waa ta ugu muhiimsan iyadana sidoo kale. waxaa la rabaa dugsi kasta oo primary school in laga furo oo class. waa waajibaad ina saaran oo uu inoo qeexayo education sector development programka iyo qorshahan GTP2 labaduba ay noo qeexayaan. sida awgeed waxaa la rabaa inaynu ka furno dugsi kasta oo primary hal class oo class ah. gabagabadii shirweynahani ayaa waxaa halkaasi shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey degmooyinkii kaalimaha hore ka ciyaaray taabagelinta iyo kor u qaadidda waxbarashada, isla markaana uu xafiiska waxbarashadu ugu talagalay inuu ka sharfo degmooyinkaasi. waxaana dhankoodana aanu waraysiyo gaar ah aanu la yeelanay qaar ka mid ah degmooyinkii kaalimaha hore ka galay dhanka tayeynta iyo kor u qaadidda waxbarashada ee shahaadooyinka la guddoonsiiyey. shirkanna waxaa ka soo baxay natiijooyin aad u ballaaran oo horey aanan u dhici jirin. waxaana aaminsanahay halkaa haddii aan ka sii wadno in deegaanka aan tirtiri doonno jahliga oo aan u bedeli doonno deegaan waxbartay. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shirweynihii waxbarashada ee soo socday 3 maalmood natiijadii ka soo baxday ee lagu qiimeynayay degmooyinka shaqooyinkii ay soo qabanayeen sanadka 2009 taasoo aan ku mutaysanay gobol ahaan kaalinta koowaad inaan ku guuleysano degmada Doloobay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii in waxayna keenaysaa mustaqbalka degmooyinka in ay u noqoto dhiirigelin si looga miro dhaliyo qorshayaasha. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan gallo kaalinta koowaad degmada caadada gobolka Shabeellaha kaalinta koowaad gallo dhanka waxbarashada tan waxa ku timid dadaal dheeraad oo ay hormuud u yihiin maamulka gobolka Shabeelle, maamulka degmada iyo dhammaan khibrada iyo madaxda waxbarashada degmada caadada waalidiinta iyo dhammaan guddiyada waxbarashada kala duwan maaha mid hal shakhsi ama hal qof u keenay. marka waxaan ballan qaadaynaa anagoo sidii awal hore oo mirti gobolka Shabeelle ku shaqeyn jiray ugu hagi jiray maamul gobolka anagoo qaadana in ka gobolka Shabeelle ahaan aanu barta maanta aan marnay aan hore ugu soconay aan dib ugu soo noqonin. shirweynaha waxbarashada oo ah mid la qabto sanadkiiba mar ayaa waxaa laga wada tashadaa sidii kor loogu qaadi lahaa loona tayeyn lahaa waxbarashada, la iskaga naasixi lahaa galdalooyinkii ka jiray dhanka waxbarashada. shirweynahani sagaalad ee waxbarashadana waxaa xoogga lagu saarayay tayeynta iyo taabagelinta waxbarashada, maadaama ay waxbarashadu ay tahay furaha koobaad ee horumarka, qof walbana ay laga maarmaan tahay inuu helo. wadayaasha gaadiidka yaryar ee baajaajta ee maamulka magaalada Dhagax Buur ayaa soo dhaweeyay bixinta taarikada cusub ee uu xafiiska ganacsiga gaadiidka iyo warshadaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya uu soo gaarsiiyay wadayaasha baajaajta. Bishaar Maxamuud iyo Babaynta Warkan. adeeg bixintan uu xafiiska ganacsiga gaadiidka iyo warshadaha ee heer deegaan uu ka wado magaalada Dhagax Buur ee xarunta maamulka gobolka Jarar ayaa waxa ay tahay bixinta sharciyada lambarka taarikada ee gaadiidka yaryar ee loo yaqaan bajaaj oo ah mid ka shaqeeya magaalada Dhagax Buur. bulshada ku dhaqan magaalada Dhagax Buur oo fududeynaya isu socodka xaafadaha iyo suuqa, iyadoo ayna aad ugu baahnaayeen mulkiilayaasha gaadiidkan yaryar ee bajaajta in loo sharciyeeyo gaadiidkooda ayaa waxa uu xafiiska ganacsiga gaadiidka iyo warshadaha ee heer deegaan uu si habsami leh ugu wareejiyay mulkiilayaasha lahaa bajaajyada taarikada. intaas kadib ayaa haddaba waxa ay bogaadiyeen soo dhaweeyeen qaar ka mid ah mulkiilayaasha iyo dirawaliinta bajaajta adeeg bixintan loogu sharciyeynayo gaadiidkooda, sheegayna in ay ku faraxsan yihiin. alxamdulillaah markan waxaan ku qaadanaa gobolka Jarar magaalada Dhagax Buur hadda gacantaan ku haynaa nambaradaasaan haysanaa si wanaagsan baana meesha loogu bixinayaa. hawshaas waa hawl ay dawladdeedu noo soo fududeysay, si fiican oo qurux badan baan u qaadanay, si fiican baan loogu soo dhaweeyay. aad baan ugu mahadnaqnay haddaan nahay dadweynaha ku dhaqan magaalada Dhagax Buur. dhibaatooyin fara badan baa walaalna haystay oo taariikh la'aan baan haysatay ma taqaanaa anagoo aad u fara badan oo 60 iyo dheeraad ah yaanu ahayn bila taariko in badan baan bila taarika ahayn. dawladdeedii si sharaf leh oo wanaagsan bay ma taqaanaa noogu keentay ma taqaanaa taarikadii saakay noo yeedhay saakana si sharaf leh noo soo siiyay taas. waxa kale oo iyaguna ka hadlay ku-siisimaha xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka ee maamulka magaalada Dhagax Buur ahna madaxxafiiska maayarka maamulka magaalada Dhagax Buur mudane Xuseen Cabdi Nuur oo noogu warbixiyay xafiiskiisa iyo xubin ka socday xafiiska ganacsiga gaadiidka iyo warshadaha ee heer deegaan mudane Cabdifataah Xirsi Carte. bajaajta magaaladu adeeg fiican ay maado haysaa, magaaladu tagaasi ma laha, ayadaa tagaasi ah. xaafadaha si fiican bay oo kala shaqeeyaan, xaafadii ku kala madhow yihiin ilaa 8 astaan
oo magaalada gudaheeda oo ay ka shaqeeyaan ayaa jira marka qiimo sahlanna waa laga qaadayo ma garanaysaa si fiican bay dadka iyo shacabka ma garanaysaa iyo adeeg hufan oo wanaagsan u siiyaan maantana waxa horumar weyn ah taarikada hadda kor waxa lagu bixin jiray jijiga tiina hadda way soo dhacday waxa la keenay goboladii iyo magaalooyinka ay dib lagu soo dhaciyay si ma garanaysaa adeega dadka loo fududeeyo oo ma garanaysaa nin kasta adeegii u heli lahaa ama taarikada siinta ay u heli lahaa in ma garanaysaa magaaladii u deganaa loogu keeno oo horumar aad u ballaaran xukuumadda iyo xisbigeenu oo hormuud ka yahay way xafiiska gaadiidka ganacsiga iyo warshadaha deegaan qorshayaashiisa ayaa waxa kamid ah ruux kasta oo gaadiid leeyahay meesha uu joogo in adeegiisa lagu siiyo dadka matalan waagi hore jigjiga ka soo qaadan jireen taarikada marka xafiiska gaadiidka ganacsiga qorshaha uu qaatay waxa kamid ah in goobta uu joogo ruux walba adeegga lagu siiyo iyaga waxaa dhacda tiimamka annagani hadda jeer waan wareegnaa kolba looyin baan qaadnaa meelo badan baan tagnaa deegaanka meel aan tagay weli ma jirto gobol walbana waan geynaa waxa alaala wixii taarikii adeeg xafiiska gaadiidka uga baahan yahay iyo ganacsiga warshadaha halkiisaasaan ku siinaa sharshaqa wajiye TV-ga caalamiga ee STV maamulka magaalada Dhagaxbuur ee xarunta maamulka gobolka Jarar bulshada u soo adeeg doonta xarunta caafimaadka ee degmada Qarsaadu leh ayaa soo dhaweeyay adeeg bixinta caafimaadka ay ka helaan xaruntaas caafimaadka ee degmada Bashiir Cabbaas ayaa baabaynta warkan inoo eegaya si loo dhowro ilaalada badqabka caafimaadka bulshada ayaa waxaa la qaatay siyaasad ku salaysan kahortaga haddaba mar aan u booqanay xarunta caafimaadka degmada Qarsaadu ayaa waxaa si habsami ah uga socday adeeg bixinta xarunta caafimaadka isla mar ahaantaasina xirfadlayaasha caafimaadku ay ka howlanayeen sidii ay uga qabtiri lahaayeen bulshada adeeg bixinta u soo doonata xaruntan caafimaadka waxaana ugu horeyntii wareysi la yeelanay qaar ka mid ah bulshada adeeg bixinta u soo doonta xaruntan caafimaadka ee degmadani waxayna bogaadiyeen guud ahaanba adeegyada ay ka helaan xaruntan caafimaadka iyo weliba sidoo kale qaabka loo qaabilo marka ay yimaadaan xarumaha caafimaadka wuxuu noo qabtay waa waxaan aragtiin ilmay welto iyo aragto hooyooyinka ay guryaha ku dhali jireen ama talaalka ay qaadaneen inuu cudurrada xunxun ee 7 cudur ee dilaaga ay ku wada dhici jireen oo guryaha ku dhamaan jireen hadinta la fahmay waa aragto bulshada meel kala joogsatay ila adahay ilmihiina inta la fahmay wax qabadkii caafimaadku wuxuu yahay aad baa loo fahmay bilcaan guri ku dhashay lama arka ilmay talaalkaaran ma aragto markay centerka wuxuu qabtay aad bay fiicantay waa la fahmay dhinaca kale waxa ayna dhankeeda ku booqanay maareeyaha xarunta caafimaadka ee degmada Marwo Hodan Cumar waxayna warbixin naga siisay guud ahaanba adeegyada ay bulshada siiso xaruntan caafimaadka ee degmada Qarsaadu dawada aan bixino adeegyada aan bixino waxa ka kooban waxawayaan adult OPD under 5 delivery pharmacy markaa loo yimaadaan oo ilaahan waxa saajiro ambalaasta hore baan ka sidirnaa dankoodana qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala isla xaruntan caafimaadka ee degmada Qarsaadu oo aan dhankooda wax ka weydiinay qaabka ay u qaabilaan bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa sheegay sida ay u qaabilaan macaamiisha adeega u soo doonta xarunta caafimaadka waxaan hadaladoodii ka mid ah looga qaaday informationka patientiga ama bukaanka kaasoo micnaa inta badan hadda akhbaaraadkan meesha ka helnay patientinada meesha u badan patientiga meesha u badan hadda meesha aan ka helnay inta badan ay tahay STI UTI typhoid iyo gastric waa xanuunada meesha hadda inta badan aan ka helno oo meesha ugu badan yahay patientiyaasha inta badan imaanayo mid kale anagoo haddana kuwa dadka patientiga ah wacyigelin ballaaran siinayno iyo kuwa kale ee community-ga ee imaanaya health centerka anagoo siinayna akhbaar health education ah aqoon kororsi baanu siinaa sida kale mid kale aqoontaasoo ah mid prevention oo looga hortagayo xanuunada aan hadda soo sheegnay STI do kala waxyaabaasna waxaanu ka bixinaa wacyigelin aad u ballaaran isku soo wada duub oo xaruntan caafimaadka ayaa si habsami leh u wada shaqadii loo idmaday isla maraantaasina ku howlan oo adeegida bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan nawaaxigan Bashiir Cabbaas telefishinka caalamiga ee TV degmada Qarsaadu ee gobolka Liibaan warkan idinka hayno dalkeena Itoobiya ayaa la sheegayaa in uu gulo wax ku oola ka soo hooyay dhinaca horumarka ee 10kii sano ee aynu soo dhaafnay Ibraahim Cabdi Muuse iyo baabaynta warkan
bulshada dalkeena Itoobiya baryahanba u heelanay soo dhaweynta sanadka cusub ee 2010 ayaa si habsami u wajahday sanadkii cusba ee la naawulayay waxaana waqti xaadirkan la gudagalay miliyamkii saddexaad ee dalkeena Itoobiya 10kiisii sano ee labaad hadafka dalkeenuna waa inuu ka mid noqdo wadamada u dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay si arrintaasi loogu guuleystana waa inay bulshada dalkeena Itoobiya gamacaha isqabsato oo ay la timaado wax qabad aan kala go' lahayn oo ka wanaagsan midkii sanadkii hore waxa kale oo yara muhiim ah in yar iyo weynba laga wada qayb qaato halganka loogu jiro dabargoynta saboolnimada maadaama uu sanadkan cusub ee aynu galnay yahay mid dalkeena u horseedaya barwaaqo waxaana maragmadoon ah inuu dalkeena Itoobiya xooga saaray sanadadii aan soo dhaafnay hawlaha la xiriira kobcinta nidaamka damaanad qaadka cuntada ee dalka si loo kobciyo taabagelinta isbeddelka dhaqan-dhaqaale ee dalka iyo isku dheelitirka horumarka wax soo saarka beeralayda iyo xoolo dhaqatada beeralayda sidoo kale waxa guulo la taaban kara laga soo hooyay nidaamka ku wajahan habka wax soo saarka beeraha iyo warshadaha dalka maadaama ay beeraha iyo warshaduhu yihiin laba aan kala laalaadin oo gundhigu ah horumarka dalka waxaana xusid mudan in 10kii sano aynu soo dhaafnay shaqo abuur loo sameeyay malaayiin dad ah bilowgii sanadkii 2000 waxa taleefanada gacanta ee moobilka loo yaqaano qaatay 1.9 milyan oo qof 10 sano kadibna waxay maanta marayaan dadka isticmaala taleefanka gacanta ama moobilku 58.1 milyan oo qof sidoo kalena bilowgii sanadkii 2000 hay'adaha sare ee dawliga waxay tiradoodu ahayd 22 maanta waxay marayaan 45 geesta kale adeega dhinaca caafimaadku waxa uu ahaa bilowgii sanadkii 2000 boqolkiiba maantana waxa uu marayaa 98 boqolkiiba adeega dhinaca layrka oo isna sanadkii 2000 awoodiisu ahayd 2000 oo megawatt waxa uu maanta gaaray 4269 megawatt haddaba si looga midho dhaliyo hadafka dalkeena ee dhinaca horumarka maxaa inala gudboon waa kan Dr. Neger Dase oo inoo qeexaya arrintaas የጀመርነውን የኢኮኖሚ እድገት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ካስፈለገ አሁን ያሉብንን ችግሮች የሚፈታ አካሄድ ልንከተል ይገባል ምንጀምረው አዲስ ዓመት በግብርናም በኢንዱስትሪ የተሻለ እድገት ይመዘገብበታል ተብሎ የሚታሰብ ዓመት ነው kobacan dhaqaale ee aynu maanta bilownay inuu halkiisa ka sii socdo haddii loo baahan yahay waa in aynu marno wadiiqadii lagu xakamayn lahaa dhibaatada jirta sanadkan cusub ee aynu hadda gallayna waxa lagu hamiyayaa in guulo la taaban kara laga soo hoyo wax soo saarka dhinaca beeraha iyo warshadaha hagaag xubinteena ciyaarahana daawasho wanaagsan kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa ugu dambeyn ogolaatay inay wada hadallo la gasho kooxda Atletico Madrid si ay ugu wada hadlaan saxiixa xidiga weerarka ugu ciyaara Diego Costa xidigan ayaa haatan diyaar u ah inuu ku laabto kooxdiisii hore ilaa iyo haatan kooxda ka dhisan magaalada London ayaa diiday inay wada hadallo la furto dhigeeda Atletico Madrid ee dalkaasi Spain waxayna wararka sheegeen in weeraryahankan aan laga rabin kooxda inuu ku soo laaban doono si markaasi tababar uu qaato xidigaha kooxdaasi si kastaba Diego Costa ayaa diidanay inuu ku soo laabto kooxdiisa ilaa ay kooxda Chelsea ogolaatay inay wada hadallo la gasho kooxda Atletico Madrid ugu dambeyn kooxda Chelsea ay 28 jirkan u sheegtay inay wado qorshe xidigan uu dib ugu laabanayo kooxdaasi Atletico Madrid ayaa doonaysa xidigan lacag dhan 60 milyan oo euro ay kula soo wareegto isla markaana uu noqdo xidiga ugu qaalisan taariikhda kooxdaasi dhanka sire ee dalka Talyaanigana kooxaha Inter Milan iyo Juventus ayaa si toos ah ugu tartamaya saxiixa daafaca tayada wanaagsan ee kooxda Lazio kaasi oo qandaraaskiisa u dhacayo ciyaaryahankan Stefan De Vrij ayaa diidan inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa Lazio iyadoo xagaaga dambe xidigan kooxaha qaar ay ku heli karaan si bilaash ah wakiilo ka socda kooxda Inter Milan ayaa ciyaaryahankan kula jiro wada hadallo uu si bilaash ah xilli ciyaareedka dambe ku imaan doona garoonka San Siro ee kooxda Inter Milan balse kooxda Juventus ayaa dhankeeda loolan aad ugu jirto soo xarigelinta xidigan waxayna diyaar u tahay 25 jirkan u ciyaara kooxda Lazio ay ka soo iibsato bisha January halkii uu si bilaash ah uga mid noqon lahaa laacibinta kooxda Inter Milan ugu dambeyntiina dhanka La Ligaha dalka Spain xididka kubadda cagta Spain La Ligaha ayaa ganaax ku soo rogay xidiga difaaca ugu ciyaara kooxda Real Madrid ee Marcelo kadib markii kaarka caslootay kulankii barbaraha ku soo dhamaaday Real Madrid ay la ciyaartay kooxda Levante Marcelo ayaa lagu soo rogay ganaax 4 kulan ah kadib markii xidigan casaanka tooska ah loo taagay
kulankaasi ay la ciyaartay kooxdiisa kooxda Levante. Marcelo ayaa lagu soo rogay ganaax 4 kulan ah kadib markii kaarka casaanka oo toos ah la siiyay kulankii ay la ciyaartay kooxdiisa kooxda Levante. ciyaaryahankan ayaa noqday laacibka saddexaad ee bilowga xilli ciyaareedkan kaarka cas loo taago kadib xidigaha Sergio Ramos iyo Cristiano Ronaldo oo haatan dhamaystay ganaaxa dhanka kaarka casaanka ay qaateen. xidiga qaranka Brazil ayaa seegi doona kulamada horyaalka ee kooxdiisa ay la ciyaari doonto kooxaha Real Sociedad, Real Betis, Alaves iyo kooxda Espanyol. arrintan ayaa dhibaato ku ah tababare Zinedine Zidane oo saddexdii kulan ee horyaalka La Liga dalkaasi Spain oo ciyaaray laba ka mid ah soo galay barbaro isla markaana ciyaartoydiisa ay ku bilowdeen qaab ciyaarada liita. This second half though we've barely named him. There's Marcelo Raul makes another fine save. And what's the referee given here? It's going to be a red card. What's direct red card for Marcelo? What? He says, or probably says K. waa tahay xubinteennii saadaasha hawadana haynu eegno. daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan intaas waxay noogu dhan war wixii deegaanka iyo dalkan idinka haynay warkayga waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Faarax Cabdi aniga asxaabta kala qayb qaadatay tibinta warkan tan dib ugu kulmi doona xilli tibinteena dambe ee wareed anagoo isku duuban waxaan idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.